halkani waa kaamka Naasa Hablood ee duleedka bari ee magaalada Hargeysa waxaa ku nool dad gaaraya 500 oo qoys. wajawi iyo xaalad ka gedisan malaha laga qaban nolosha caadiga ah ee badiba ay ku nool yihiin bulshadu. xaruntani waxay martigelisaa oo gabood iyo hoy u tahay ku dhawaad 500 oo qoys oo iyagu aan awoodin macaanka nolosha ee ay ku jiraan qoysas badani. waxaana bulshada kala duwan ee degan kaamka Naasa Hablood ay ga warrameen xaaladooda. wallahi waayahayagu waa badan yihiin. waxaan u baahanay bayd baan u baahan meel la dejiya baan u baahan in hooyo darxmadana laga qaado baan u baahanahay suulin meel wanaagsan oo suulilaho hooyo aan galabaan u baahanahay hooyo daasad baan dishay hooyo waxba kuma nooli dabadayada yaargayga wada fiixbay noqota hadee bikada la waayahayagu waa badan dawladayadii wanaagsanayd baan hoos joognaa dalkayagii wanaagsanaa baan hoos joognaa laakiin hooyo wixii danyar ee hooyo darxmadu hayso ayaanay hoos u eegin ayaanay hooyo hoos noo eegin laakiin dawladayada wanaagsan iyo inamada way naga dhayo hooyo waxaan doonaynaa ka codsanaynaa inay meel nageeyaan inay darxmada naga qaadaan inay meel noo dhisaan amba cagafna geliyaan oo na dareeriya hooyo waxa la yiri dameertu isku halayn ay hooyadeed dabada uga nuugaysa marka ugu horeysa danyaraha halka degan barakacyaasha Naasa Hablood ayaanu nahay 10 caruur baan ku haysanaa ku daafad iyo xashiish iyo qudun ayaa waxaan ku raagteedii ka buuxa marka hooyo maxay haytay waxaan doonaynaa si degdeg ku daafada qudunka xashiishka xaarka aanu dhex fadhino biyo la'aanta suuli la'aanta in la soo gaaro oo loo yimaado ayaanu rabnaa waxaanu nahay in badan baa la yiri in badan ayaa la yiri waa la reynaa Naasa Hablood oo maayirku Naasa Hablood waan rabay manuu rarin si degdeg waxaan doonayaa hooyo in loo soo gaaro dayarta meesha iska joogta iska xafsatan kuuliga iyo dhismaha iyo meelaha ku yaacda yaa islaamuna halkaas iska joogaan oo cidina kama warayso annagu dadkii abaarkeentadii ariyo ka baxeen baan oo iska joognaa dadka waaweyn meesha joogay dumar iyo xawilay leh qaar jilicsan yihiin qaar maatida yihiin in laga warhaya qurux badan hata aad culus baan haysata hooy la'aan baan haysata waxa ka sii horeeya dadku nooluhu wuxuu ku noolaadaa cunto iyo biyo cabo arrimada xasaasiga oo dhan baa naga maqan waqtiyeed waxa jira wadanka cudur baa ka jira oo caalamkaba lagu sheegay afka waxaan ku xidhana ma haysano waxaan iskaga ilaalina ma haysano dawooyin ma haysano dhakhtar meelihiin waxaan mujtamac reer Soomaaliland oo halka ku baaba'aya oo haddana dawladdeeduna aan waxaan u malaynayaa daanidan malaana ma taqaanee waxaan doonayaa dawladayada dadkayga inay soo caawiyaan oo bartaan biyaha wadaadada cararaya sadaqad booyad noo keena mooyaane ma jiraan wax dawladuna soo gaarsiiyaa biyo dawladayaduna ilaa maanta ilaa 12 sano aan deganeen maanta wax caawimo ay noo geysatay iyo tala ahaan waxay noola timi midna kama hayno marka waxaan leenahay dawladda haddaan anagu dalka xaq u lahayn aanan hayn Soomaaliland daris inay noo dhiibaan madaxweynayaasha dawladaha dariska haddaan waxba noo qabanin ayaan ku codsanaynaa iyo caalamkaba iyo dadka islaamka adduunka ku dhor dadkana aad bay u baahan yihiin maryaha iyagii baan hoosta kaga jiraayo hooy ka dhiganay dhaxanta iyo cadceedu way noo dareeyeen wax dhaqaalaha aan haysanaa ay haystaan dadkanina ma jiraan hadday dhaqaalaha haystaan halkanba ma joogeen goobtan waxaa taala xaalad duruufeed oo aad u hooseysa. Axmed Maxamuud Dool MMTV Hargeysa.